galabnimadii maalintaasi ayaa Maryam waxa adeegsaday inaan reer ku dhalay kaasoo tarmuus iyo lacag inta u dhiibay Maryam shaah u diray hase ahaatee waxa dhacday in Maryam markii ay shaahi soo iibisay uu tarmuuskii ka jabay iyadoo guriga albaabkiisa taagan kana cabsi qabta waxa lagu sameyn doona ayay mar qura aragtay islaantii oo albaabka guriga taagan Maryam mar alla markay aragtay afadii oo soo baxday baycagaha wax ka dayday maxaa yeelay way ogsooneed inay faraha ka dhoofto waxay isi soo agtaagtay baabuur baxayo aan waqti sidaas ahay u harin dadkii badiba way fuushanaayeen hareerahana waxa ka taagnaa baabuurka kaarigii kirishboy darawalkii iyo danigii oo lacag ku xisaabtamayay Maryam waxay aad u indhaysay siday u ogaan lahayd ama u warsan lahayd baabuurka iyo sidii loo raaci lahaa ma ay danaynin meesha uu ku socdo meel kasta ha u socdee hadii la qaado way u raacaysaa duruufta haysatay daraadeed in cabaara markay ku gaaf wareegaysay iyadoo u kurgalaysa dadka baabuurka wata kuwa ay yihiin bay mar damba maqashay dadkii baabuurka fuushanaayo ku qaylinaya darawalkii kaasoo aqoonsatay intay isi soo agtaagtay bay tiri adeerow iqaad darawalkii oo aad isugu buuqsan afkuna cagaar ka daadanayo ayaa indhagalka ka baxsan Maryam ku eegay hadalna wuxuu ka yiri wallaahi ma foolximid hayeeshee waad rasan tahay hadalka markuu lahaa ayaa waxa maqlayay kirishboygii intuu ku soo dhawaaday Maryam ishana ku gubay buu mar dambe yiri haya abaayo adiga xagee rabtay Maryam baa inta ka naxday su'aasha la weydiiyay tiri idinku xagee ku socotaan kirishboygii ayaa qosol ka wareegay meeshan ku soconno hadaadan garanayn maxaad iqaada u leedahay annagu soo waan ku qaadaynaa hadaad xagga baabuurka u jeedo u socotid kirishboygii baa yiri ma iqaadaysaan xagee fuulaa Maryam baa tiri jaranjaradan ku fuuloo dhaqso waa la dhaqaaqayaaye kirishboygii baa yiri Maryam oo cagaha ka dhididaysa naxdin iyo xishood kaga yimid baabuur fuulka maanta ku horeeya dartii baa jaranjaradii fuushay waxay sii socotaba mar dambe rakadii sare ee baabuurka u baxday taasay ugu tagtay dad aad u badan oo ugu muuqday kulligood iyada inay guulayaan geesana wada leh maxaa yeelay baabuurka ciriiri oo qof waliba wuxuu islahaa yaan lagu sii ciriiriyin Maryam waxay indhaysay meeshay fariisan lahayd masa arag dhowr qof oo meel jambi ah salka kula jirtay bay sii dul taagtay iyana dhamaantood sugayeen inay sii dhaafto dadka qaar baa si uga qashaafayay oo islahaa qoftan kirishboygu wataa yay ku ag fariisan Maryam inkastoo duruuftu ku eexatay oo silic ku barbaartay taasay aad iyo aad wax u gaarsiisay dadnimaday lahaan lahayd haddana markay runugeyso laga yaabee inay hagoogato waxay meel aad u ciqaaban taagnaataba mar dambe ayaa baabuurkii la daaray Maryam baa dhiilo iyo naxdini galeen iyadoo ka baqday waxa baabuurku fali doono way ogsoon tahay marar badanna ishay ka aragtay baabuur meelahaas xawxawle hase yeeshee weligeed maalintaas ka hor gudihiisa iyo iyadu ismay arag meelay haysatay jambi ahayd bay aad ugu haleeshay iyadoo isle dhibta iman doonta ka fako baabuurkii baa dhaqaaq bilaabay taasoo kor u booday kol alla kolkuu hinqaday hadal ayan iyadu is orandeh baa ka soo fakaday alla waa dhaqaaqay sidoo u dhaqaaqay ayuu ugu shubay ilaa uu ka liblay magaaladii hadiiba wuxuu ka liblay magaaladii Maryam nabcayde lagu diri jiray waliisa neef baa Maryam ku taagan ay ka baqayso baabuurka iyo socodkiisa yara nafis ah magaalada ay ka tagtay baa ku dhashay galab ama casar gaab bay ahayd dadka baabuurka fuushanina inkastay badnaayeen baabuurkuna buux dhaafay waxay wada jeeqaaqayeen kana rajo qabeen hurdo iyo meel ay cawada seexdaan maadaama la guureyn doono Maryam inkastay taawirmo ka ahayd haddana meel meeshay joogta laanta kama dayriseen hadayba helayso meel gadaale oo qashin iyo cafish laga dhaanshay ayaa waxa soo kadaloobay wiilkii Maryam baabuurka soo saaray kirishboygii oo isagu sidoo meesha u soo fuulayba Maryam isha ka qaadin waa la fahmi karay sababta ugu dhaygagsanaa dadka baabuurka fuushan badidiisu way u jeedeen horeyna way ula socdeen dhaqdhaqaaqii dhacay meesha ama dhulka la marayay waa dhul qarfa ah
oo aan aamin ahayn baabuurkuna booda rableynayay dad horay fadhigu uga xumaa baa fadhigii u hagaagay saaldadii baabuurka daraadeed dadka waxaa ku jiray odayaal dhowr ahoo si isu wada reer magaaleynaya mid ka mida odayada ayaa si ugu maqnaa Maryan iyo dhogor xumada ka muuqatay wuxuu is weydiiyay inay soo fakatay oo wax ka carartay odayga Maryan ka shakiyay wuxuu ka mid ahaa odayada magaalada Maryan wajigeeduna waa ku yaal walowba aanu soo dhifan tay ahayd iyo meeshay joogi jirtay waxa odayga isaga ag fadhiyay ay wada socdeen oday kale oo isku meel ku socdeen labaduba waa mushtar aan sidaa u sii taaganayn kii hore wuxuu eegayay baa kii kale inta gudbiyay si faqah wuxuu u yiri war gabadhan magaalada ka fakanaysa ma aragtaa kii kale sida wax u danaynin baa inta isdhagooleeyay mar dambe yiri maadinaga deysid howlahaas aan danta inoo ahayn manaagaha maanta jooga meelay u socdaan iyo arrimahooda loo galaa allow ku magan naag hadaan la danin ma wax kale oo la daneeyaa jira anigase maad su'aasha sidaan ku weydiiyay igaga jawaabtid intaad goofoodaysid qoftani la mid ma aha naagaha ka hadlaysid bal u fiiro yeelo waa qof baqsan didsan rasan ama dan ha u run sheegto ama dan ha lahaatee anigu se waxaan u malaynayaa inay qof carar ah tahay wajigeedana waa igu yaala oo marar badan baan arkay kii hore su'aasha u geystay baa yiri kii hadalka u dhacayay ayaa sidii qof daalan inta neef tuuray isagoo hadaladan nacsan dhan kale isu gundhiyay inuu hadlana kaba masuugay macna daray leeyahay inuu hadlaba maxaa yeelay waxaan deeqin dooda saaxiibkii meesha keenay ninkii lagu diiday hadalka ayaa isna deystay hadalkii waxaanu sadeyn inuu Maryan u fiiro lahaado baabuurkii wali waa duulayay dadkii saaraana sidii bay u lulmanayeen qoraxdii marba marka ka dambeysay way sii ciireysay Maryan meeshii bay wali taagneed dabayl xun oo xagaa baa dhacaysay baabuurkuna waaba ka horjeeday iyadoo sida ahayd ayaa Maryan ayaan hu u lahayn calaladii jeexjeexnaay ee qabtayna bilifta hayaan waxa hadba kor uga boodaya tima aad u dheeraa oo ay lahayd waxay ku xirtana u lahayd gacmahii la kala gaari weysay martimahay ku boodaa martafii kala jeexjeexna bay hadba mid qabataa iyadoo waliba inay dhacdo ka baqayso hadba dhig raacaysa meelo badan oo jirkeeda ah haweenkana cawra u ah bay u lahayd hu ay ku asturto arrin daraadii odaygii baa inta isha ku sii gubay iskula hadlay walla qurux u dhalatay waqtiga ku haya mooyaane intiiba intuu ka naxay waxa Maryan haysta buu yiri isagoo dadweynaha baabuurka fuushan hadalka dhex dhigaya war miyaynan dad naxaya ama dadnimo haba yaraatay ku duugan tahay ahayn maxaad inanta yara agtiina balanbalaysa wax u tari laadihiin intiibana go'uu huwana uu inta u soo tuuray ku yiri naabal isku qabo wax kala ma hayne dadkii intii badnayd dhalinyarada ahayd lab iyo ladig baa si kale taa u qaatay intay iswada eegeen oo afka wada buureen leysuna wada iljabshay baa isku mar la wada yiri haa bal isku qabo wax kalena lama sii orane intaas hadalkii lagu deystay Maryan way garatay duruucda huuhaada way xishootay oo waxay ka gaabsatay go'ii loo soo tuuray inay qabsato walowba uu dusheeda badiba ku dhacay intay aad u yaxyaxday oo hadba dhan eegtay bay iyadood moodo in balaayo soo agdhoobatay gacanna u fidin weysay xishood daraadii dhaxan baa haysay naxdintay naxday darteed ayaa dhidid qooyay odaygii wax taris yiri laftiisa la gal dhalinyaradana ka baq habar baas inta soo booday tiri allow doqonay ha ku naxariisan naaqabso go'a oo isku qabo waad u baahan tahay maxaa ka galay yowgan huuhaadooda haddayse iyagu dad yihiin may wax ku taraan intay heesayaan waxbaha maqal warkoode qabso go'o halkana soo fariiso Maryan oo aad geesinimo gelin dheeraada uga heshay hadalka habarta baa go'ii boobtay kadibna waxay isku soo qaaday habarta agteedii meelay salka dhigtay inkastoo ciriiri ahayd bay heshay naftii baa ku soo noqotay dhaawicii horese mid kala ugu darsamay dabayl aad u gashay intay aad u dhaxamootay bay gariireysay indhahana biyaa da'ayay waxadala lagama hayo oo mar way xishoonaysaa mar kalena afkeeda jajaban oo dhaawaca bararka ah leh wajigeeda ku yaal bay qarsanaysaa iyadu waxay ula muuqdeen ceeb iyo